dignity iyo nolol iyo karaamo wuxuu rabbigay ii uumay adduunka korkiisa aan ku waayay habeenkaas. midii ku hubaysan wuxuu ka yimaaday gadaasheeda wuxuu damcay inuu aniga yani sharafkeyga dhaawaco idilo yani wax walba oo maanta qof xumaan walba maanta qof lagu sameyn lahaa inuu igu sameeyo wax kasto oo foolxun wax kasto aan maanta rabin inaan maaragtay runtii waa arrin aad u xanuun badan. hooyadan Soomaaliyeed ee muddo laga joogo 34 sano ka hor ay ku dhacday dhibaatadan aad u weyn. maantana waxa la isku diyay ayadoo lagu jiro 2021 in dhibaatadaas mid la mid ah loo geysto gabar Soomaaliyeed waliba aad u da'yar. subhanallah. السلام عليكم وعن صاحبة الشرف له. ما أنتوا حنجعلستين أن كهالله أرين رنتي آد أمور جبدا أو لجو هذا الهاي بريهم با سوشيال ميديا هجارهن برتن يوتيوب كيولي با فيسبوك با أرين تنا واحد تهاي دعوة كود عذي جبر سوماليات أو ولي با آد وداير كنا نول ودن كماليشيا ولي با دعوة أيا واحد كود عذي وقت رمضان لنسوا ميهاي إن مركور بل أرين تجبدا أنت أنا كهالين waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaal kale oo aan ku arkay barta Facebooka muuqaalkaas ayaa waxa lagu wareysanayaa maamo Soomaaliyeed oo tacaddi aad u weyn oo waliba kufsi iyo dil ah jirdil ah loo geystay sanadku markuu ahaa 1996 saaxiibayaal hooyadan Soomaaliyeed xilliga sanadku markuu ahaa 1996 ayaa waxa loo geystay shirqool kadibna rag dhalinyaro ah ayaa gaari ku kaxaystay waxa ayna geysteen meel duur ah kadibna maxaa la yiraahdaa wax walba ay ku sameyn karaan ay ku sameeyeen. muuqaalkeeda runtii aad ayuu u dheeryahay ma awoodo halkan inaan kugu soo gudbiyo gabi ahaanba laakiin bal marka hore aan isla daawano inta aan ka soo qaatay muuqaalkeeda hooyadan Soomaaliyeed oo ka hadlaysa bal qaabkii maxaa la yiraahdaa wax ugu dhaceen xilligaas. inta waxa iga fadhiyo laba rag ma fahmaysaa markuu saas u xawaareynayo jid aad moodo oodna inta ka saaran tahay intana ka saaran tahay dhex bartankan camalo baabuurkii afka la galay waa meel juqa tiitiin leh dhagxa leh san u xasuusto qaylo ooyin baryo duuf ilin waaw وما يقربتين يعني dignity iyo nolol iyo karaamo wuxuu rabbigay ii uumay adduunka korkiisa aan ku waayay habeenkaas. wax kasto oo foolxun wax kasto aan maanta rabin inaan maaragtay saaxiibayaal sidaad arkaysaan ama aad maqlaysaan hadalka maamadan xilligaas ayaa waxa loo geystay tacaddi runtii aad u weyn oo saameyn weyn ku yeeshay nolosheeda oo ilaa maantaba ay la oynayso marka ay maxaa la yiraahdaa soo xasuusato. arrintaas runtii xilliga ay dhacayso waa 1996 xilli Soomaaliya ay ka jirtay dawlad awood badan inkastoo xilligaas uu ku dhawaa xilliga burburkii maxaa la yiraahdaa dawladana ay aad u sii tabardaraanaysa. maamadan Soomaaliyeed hadda ay jeclaystay arrintan inay ka hadasho runtii buugaag ayna ka qortay dhibaatadii ku dhacday xilligaas. runtii maanta oo la joogo 2021 arrintaas inay sii socoto wali waa wax aad looga xumaado. bal aan isla daawano muuqaalka gabadhan Soomaaliyeed oo lala damacsanaa dhibaatadaas mid la mid ah balse Ilaah uu ka badbaadiyay. muuqaalkeeda aan isla daawano. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 19 Abriil sanadii 2021 sanadkan aan ku jirno maalin Ramadaan 7 ee tahay isniin maxaa dhacay wax aad u xun musiibo yani musiibana ma dhigi karo sababtoo ah mar waliba waxa kugu dhacay waxa ka weyn waxa Ilaahay ka hayo. maalintaas ama habeenkaas 1 saac iyo 40 habeenimo ilaa 50 inta u dhaxaysay anigoo sooman sida wada ogeedeen Ramadaan ahayd waan soomanaa markii la afuray oo saan loo afuray ma afurin laakiin Ramadaankii uun baa iska jabiyay baa waxa damcay inaan afuro intaan afurin laakiin Ilaahay
qofku u gargaarayo waa gooni. waxaa qalbigayga ku soo dhacday in salaadii la dhaafi rabo, afurkana wuu ka muhiimsan yahay. mar haddii aad ramadaankii jibisay ee ku muhiimsan tahay waajibkii hore waa soo gudatay, waajibka hadda taagan tan way ku dhaaftay, marka salaad inaysan dhaafin. waa baxay qolkayga galay, waa soo xirtay, waa bisqaatay, waa dukaday, alxamdulillaah. waa soo duceystay anigoo weyse qabo, waa soo baxay. waxaan isku diyaarinayay inaan afuro, laakiin nasiib xumo markii aan imaaday miiskii aan ku afuri lahaa oo aan sidaan fadhiisi isdhahay oo aan saa u taagnaa, baa qof arxanlaabo ah, laftiisa dhiga ah, muddi ku hubeysan wuxuu ka yimaaday gadaasheeda. wuxuu damcay inuu aniga yacni sharafkeyga dhaawaco, idilo. yacni wax walba oo maanta qof xumaan walba maanta qof lagu sameyn lahaa inuu igu sameeyo. laakiin alxamdulilah mar waliba waxaa garabkayga ah ilaahay. mar haddii aad shantaada salaad dukanayso, afkaaga iyo adinkaaga laga nabad galo, aad tahay qof waajibaadka ilaahay saaray gudanaayo, ilaahay ku xiran, wax walboo kugu dhaco xataa qeyr lay ku yihiin. wax walboo kugu dhaco xataa haddii lagu dilo xataa waa nasiib. saaxiib yaal, gabadhan ninka ay ka sheekaynayso oo ay leedahay midi ayuu ku hubaysnaa oo waxa isku dayay kufsi iyo dil, waa nin ay garanayso ay qaraabo yihiin, maxaa la yiraahdaa, isla markaana sida caadiga ah la afuri jiray iyaga. ninkaas ayaa damcay inuu dilo, kufsado, wax walba oo dhibaato ahna u geysto. sidaan idinka soo hilmaamay maamadii Soomaaliyeedna runtii dadka dhibaatada u geystay waxaa ku jiray amaba ninka gaariga ku waday waxa uu ahaa nin ay waji garanayso, isla markaana gabadh ayada maxaa la yiraahdaa saaxiibteed ah, saaxiib la ah. ninkaas ayaa dhibaatada u geystay hooyada Soomaaliyeed. gabadhana sidoo kale ninkan dhibaatada la damcay waxa uu ahaa nin ay wada garanayaan, maxaa la yiraahdaa tol ahaan ay qaraabo yihiin, isla markaana sida caadiga guriga kala afuri jiray. saaxiib yaal, gabadhan sida ay sheegayso wiilka waa ay la dagaalatay, isla markaana iska celisay inta tabarteeda. ilaah ayaa ka badbaadiyay gabadhan. wax dhibaato ah ama dhibaatooyinka uu la damacsanaa ma uusan u geysan marka laga reebo dhaawac yar oo ka soo gaaray gacanta. gabadha isbitaal ayaa la dhigay, runtii waa ayna caafimaaday. laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay gabadhaas maanta waxay isku dayday sharciga inay raadsato oo wiilkan ay dacweyso, laakiin qabiilka ay ka soo wada jeedaan wiilkan iyo gabadhan ayaa waxa ay gabadha ka hortaagan yihiin sharciga inay raadsato, isla markaana waxa ay leeyihiin wax walba hoos ayaa loo dhameynayaa oo wiilkan ceebihiisa banaanka ha keenin. runtii arrintaasna waa dhibka ugu weyn ee haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatada loo geysto. dhaqan ahaan runtii dhaqanka sidiisaba ma aha diin islaam iyo diin gaalo ma jirto diin banaynaysa in gabar la kufsado nuucay doontaba ha ahaatee. laakiin dhaqanka Soomaaliga ayaa waxa uu yahay in la yiraahdo gabadhan haddii la kufsaday ma aha in bulshada lala wadaago, isla markaana ayada ceeb loo geysto oo mustaqbalkeeda dambe la waxyeeleeyo. wiilka dhibaatada geystana aan mustaqbalkiisa dambe ceeb iyo maxaa la yiraahdaa dhibaato loo geysana, isla markaana arrinta hoos loo dhameeyo. bal aan isla daawano gabadha maxaa la yiraahdaa oo ka hadlaysa arrintan familkeeda ay ku leeyihiin George oo wiilkan waxba sharciga iyo maxkamad haraadsan. aan isla daawano muuqaalka gabadhan. waa dheesin reer hebel waaye, adigana wiilka waa walaalkahay, ma cafinay maxaa u cafinay walaalkay adiga waxa sheego siin tolatiina sheego siin. haddii aad dhammaantiin iga soo horjeesteen, aad asiga garab siiseen, aniga aad xaqayga inaad duugtiin aad rabtiin oo idhahaysiin qabiila loo xalina, shala idin sheegay, maanta idin sheegay, social media sheega. saaxiib yaal, sidaa maqlaysaanba gabadhan hadda xilliga la taagan yahay dhibaatada waxay ka haysataa xagga familiga amaba tolka oo ku adkeysanaya arrintan in hoos loo xaliyo, isla markaana maxaa la yiraahdaa barnaamijka halkan lagu damiyo. runtii dhibaatooyinkan waa ay sii socon doonaan ilaa maxaa la yiraahdaa qiyaamaha haddii qofkii dhibaatada geystay sharciga aan la hor keenin oo maxaa la yiraahdaa sidan loo dugduugayo. halkaas ayaan rabaa saaxiib yaal inaan ku soo gabagabeeyo
barnaamijkan gabadhan Soomaaliyeedna waxaan u rajeynayaa bashbash iyo baraare iyo caafimaad inta nolosheeda ka harsan insha Allah